سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوضيال قضبضاد ورركنا كمغلي دونتان وحاكم ذا حقاقاتك الرئيقا يقوله أبدو قبلنا كقاري دقالك كسعنا وقويقا إيثوبيا إذا مدى تيبي لفايا جبكي أبدو قعس لقارسي إذا مدى دولدا إيثوبيا dagaalamaya gobolka Axmaarada ayaday xogaga Tigraygu ay sheegeen inay guulo aad u ballaaran ka gaareen dagaalkuna uu ka furmay jahooyin cusub ciidamada dowladda Itoobiya ay iskaga huleeleen deegaano aad u ballaaran qarkana ay u saaran yihiin inay la wareegaan magaalooyinka waaweyn ee istiraatiijiga ee deegaanka Axmaarada ayadoo dagaalo aad u culus ay ka soconayaan deegaanadaasi gobolka Axmaarada ayaa kacdoon shacab ka taagan yahay oo looga soo horjeedo dowladda federaalka Itoobiya ayadoo siyaasiyiinta mucaaradka dhalinyarada deegaanka Axmaarada ay guud ahaanba abaabulayaan mudaharaadyo waaweyn oo kacdoon siyaasadeed oo dowladda federaalka Itoobiya looga soo horjeedo wadarayaashan ayaa ku doodaya inay dowladda Itoobiya gabi ahaanba ku fashilantay dagaalka ka soconaya waqooyiga Itoobiya xogaga TPLF guraha ballaaran ka gaaraya dagaalka ka soconaya deegaanka Axmaaradana ayna dowladda Itoobiya u diyaarsanayn gabi ahaanba inay la dagaalanto ama inay ka hortagto ayadoo gobolka Axmaarada dagaalo kumanaan kun oo rayid barakacay ay ka soconayaan marba marka ka dambeysana dagaalkaasi uu ku sii fidayo deegaano horle ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa qoys ka taagan balayir dagaalka ka soconaya gobolka Tigrayga ayadoo ra'iisul wasaaruhu maalmihii ugu dambeeyay uu shirar xasaasi kula jiray taliyaasha ciidanka ayaa xubnaha ugu sarreeya awoodda dalka Itoobiya uu kala hadlay qaabka loo wajihi karo dagaalka ka soconaya gobolka Tigrayga ayaa haddana ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu caqabad weyn kala kulmaya saraakiisha ciidanka oo ina ka go'rayn baa la yidhi inay ciidamada sida dagaalka ay xogaga Tigrayga uga guulaysan lahaayeen ay u jeeyaan ayadoo ciidanka dowladda Itoobiya uu wajahayo guuldarooyin aad u ballaaran dagaalkana gabi ahaanba militariga Itoobiya uu ku jabay sidoo kale gobolka Oromiya waxaa ka soconaya dagaalo aad u culus oo u dhaxeeya ciidamada dowladda Itoobiya iyo dagaalyahanada Oromada jamaacada Ola ayaa dagaalka ku fidisay xuduudda dheer ee dowladdeegaanka Soomaaliya ee gobolka Bali ayadoo xogaga Oromadu ay ka dagaalamayaan xuduudda Bali ee dowladdeegaanka Soomaalida dagaalkuna uu xuduudda deegaanka soo galay xogaga Oromada iyo ciidanka deegaanka Oromada oo kaabayaan ciidamada militariga Itoobiya ayaa ku dagaalamaya xuduudda dowladdeegaanka Soomaalida iyo gobolka Oromada qaybta Bali ayadoo halkaas la sheegay jamaacada Oromadu inay deegaano ka qabsatay ciidanka dowladda sida muuqaalo ay ku baahisay jamaacadu warbaahinta afkeeda ku hadasha laguna sheegay jamaacada Oromada inay deegaanada ballaaran oo gobolka Bali la wareegtay ciidamada militariga Soomaaliya ayaa sheegay inay deegaanadii ugu dambeeyay ka qabsadeen gobolada Hiiraan ayadoo halkaasi maalmihii ugu dambeeyay uu ka soconayay dagaal aad u culus xogaga argagixisada ee Soomaaliya ka dhaqaaqa ayaa gabi ahaanba ku jabay dagaalka kacdoonka bulshada Soomaaliyeed ay hogaaminayso ee guud ahaanba dalka Soomaaliya looga saarayo argagixisada ayadoo ciidamada dowladda Soomaaliya ay dhiirigelinaad u ballaaran ka helayaan bulshada Soomaaliyeed oo guud ahaanba u istaagtay sidii la iskaga dulqaadi lahaa xogaga argagixisada ee muddada dheer bulshada Soomaaliyeed ku hayay weerarada qarxiyada aan dhamaadka lahayn ayadoo qabaa'ilka Soomaaliyeed guud ahaanba ay u istaageen sidii ciidanka dowladda garab looga siin lahaa sidii dadweynaha Soomaaliya looga ciribtiri lahaa xogaga argagixisada dagaalo culusna ay ka soconayaan bartamaha Soomaaliya iyo koonfurta qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 1 bisha 10aad 2022 haddaynu guda galo wararkeeni oo faahfaahsan
xogaga Tigrayga ayaa dagaalka ka soconaya deegaanka Axmaarada gulihii abid ugu ballarna ka gaaray iyagoo jabkii abid ugu cuslaa gaarsiiyay ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ee ka dagaalamaya gobolada Walla waqooyiga Gondar iyo deegaanada loo yaqaan Soketa iyo deegaano ballaaran oo ka tirsan gobolka Axmaarada ciidamada TPLF ayaa sheegay inay burburiyeen tiknika aad u tiro badan oo militariga Itoobiya gacantana ay ku dhigeen saaran militari oo aad u ballaaran ciidamadoodu ay ku sii durkayaan deegaano hor leh ayagoo sheegay inay guulo aad u waaweyn ka gaadheen dagaalka ka soconaya deegaanka Axmaarada dagaalkuna uu jahooyin cusub ku faafay deegaano hor leh dagaalkan ay guulo waaweyn ciidamadoodu ay ku hogaaminayaan gobolka Axmaarada ayaa laga dareemayaa kacdoon looga soo horjeeda dowladda federaalka Itoobiya iyadoo siyaasiyiinta mucaaradka ee deegaanka Axmaarada ay iskugu yeedheen kacdoon wanayaasha deegaanka Axmaarada si looga soo horjeedo dowladda Itoobiya dowladda Dr. Abiy Ahmed ayaa lagu eedeeyay inay ka go'een gabi ahaanba inay la dagaalanto xogaga TPLF deegaanka Axmaarada dhulka aadka u ballaaran kala wareegay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa quus ka taagan baliyada dagaalka lagula jiro xogaga TPLF ayadoo ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ka fikirayo dagaalka lagula jiro xogaga Tigrayga wixii lagu bedeli lahaa ayadoo ra'iisul wasaaruhu saraakiisha ciidanka iyo shakhsiyaadka go'aanka ugu dambeeyay dalka ka goola tashiyo baan la sameeyay dagaalka xogaga Tigrayga uu sii cuslaanaya marba markaa ka dambeysana uu deegaano hor la ku sii fidayo xogaga Oromada ayaa dagaalka ka soconaya gobolka Oromada ku fidiyay xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida ee gobolka loo yaqaano Bali ee xuduudda dheer la wadaaga dowlad deegaanka Soomaalida ayadoo halkaasi xogagaasi kula dagaalamayaan ciidamada dowladda Itoobiya iyo maleeshiyaadka deegaanka Oromada xogagan ayaa sheegay inay deegaano aad u ballaaran kala wareegeen ciidamada dowladda Itoobiya ee ka howlgala gobolka Bali ee xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida militariga Soomaaliya ayaa guulo aad u ballaaran ka gaaray dagaalka uu kula jiro xogaga argagixisada ee Soomaaliya ayadoo bulshada Soomaaliyeed ay u istaagtay sidii ciidamada Soomaaliya garab u siin lahaayeen dalweynaha Soomaaliyana gabi ahaanba looga ciribtiri lahaa xogaga argagixisada dagaalo culusna ay ka soconayaan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya taliya kulantii dambo wacan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.